السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله مقالكينا maanta waxaan u qaybin doonaa laba qaybood. Qaybta koobaad waxaan ku darsi doonaa sidii aynu soo buuxbuuxin lahayn about page-ka si la mid ah qaabkan home page-ku u buuxo inaynu soo buuxino qaybta loo yaqaano about page-ka inagoo ka soo muujinayna xogtan iyo macluumaadka halkan inooga muuqda. About page-ka waxaa laga soo muujin karaa shay kasta oo ku saabsan website-ka marka ama company-ga. marka waxaan uga soo muujin karnaa qaab statement ah ama qaab qoraal ah baynu uga soo muujin karnaa iyo sidoo kale qaab waxa weeye sawir ah ayaynu xogta iyo macluumaadka ku saabsan website-ka aynu uga soo muujin karnaa. marka insha Allah waxaan ku darsi doonaa waxaan soo gelin doonaa background-kan qoraalkana waynu ku soo qori doonaa inagoo isticmaali doonaa qaybta waxa weeye center-ka soo dhigi doonaa haddii la idmo waxa weeye qaybahan kalena ku lifaaqi doonaa. kaasi waa qodobka koobaad. qodobka labaadna waxaan isku xiri doonaa page-kii tusaale anoo about page jooga inaan tegi karo home page-ka sidaa awgeed uu jiro lifaaq sheegaya labada waxa weeyaan isku xiraya. sidaa awgeed haddana aan ku noqon karo about page-kii oo anoo home-ka jooga inaan about-kii aan access u lahaa inuu waxa weeye xogtiisii uu igu xiro. marka insha Allah labadaas qodob baynu maanta darsi doonaa. si aynu bilowno waxaan soo furan doonaa aan hore u haysanay folder aynu ugu qornayd website aynu ugu qornayd folderkaasaan soo furi doonaa. folderka waxaa igu jira sawiradii iyo waxa weeye extensionadii labada luuqadood. marka extensionka koobaad waxaan soo furi doonaa extensionka waxa weeyaan HTML-ka indhigaas ay ku qoran tahay. right click baan leeyahay open with VS Code-kan kusoo furi doonaa. labaadna sidoo kale isagana CSS-kana right click baan siin doonaa isagana open with VS Code ayaan leeyahay. labada markaan soo furto waxaan dooni doonaa sawirka aan u isticmaali lahaa background-ka. sawirka ayaan soo qaadan doonaa. sawirkii wuxuu yaalaa qaybta desktop-ka oo soo copy garaysanaya. waxaan dhigan doonaa markaa folderka ayaan ku paste garaysan doonaa. sawirku waa MP4 waxa ku qoran waxa weeyaan AMG4 ayaa ku qoran extensionkiisuna waxa weeye waa JPEG. sidaa awgeed waxaan iman doonaa notepad waxaan leeyahay VS Code-kii markaan imaado waxaan samaysan doonaa file cusub maadaama file-kan loo yaqaano about waxaan ugu magac dari doonaa isla magaciisa. file baan tegi doonaa waxaan kasii dooran doonaa halkay ku qoran tahay new file then halkaasan waxaan kasii dooran doonaa okay file baan tegi qaybta iska soo xiri new file baan kasii dooran halkaasaan waxaan ku qori doonaa about.html then waxaan leeyahay enter baan siin doonaa. intaan markaan siiyo waxaan ku samaysan doonaa create file ayaan halka ka samaysan doonaa. waxaan soo copy garaysanayaa marka qaybta indexkii baan tegayaa all Ctrl+A baan leeyahay then waxaan leeyahay Ctrl+C waxaan ku baasti garaysan doonaa qaybtan inaan u baahanahay iyo inaan u baahaynba waa jirtaa. waxaan u baahanahay marka qaybta ugu sarreysa inay ka sinaadaan marka aad joogtid home-ka iyo markaad joogtid about-ka labadaasba waa inay qaybtaasi ay fixed halkeeda ku tahay aanay halkeeda ka dhaqaaqeen halkeedaasina ay mar walba ka muuqanaysaa. laakiin qaybta isbedelaysaa waa qaybtan waxaa loo yaqaanaa hero section-ka. qaybtana waxaynu yidhi waa maxay waa header section-ki. marka waxaan bedelan doonaa qaybtaa sare iyadu waxa weeye waa navigation-kii qaybta waan u baahannahay inay xaggeedaa joogto laakiin qaybtaynu bedeli doonaa waa qaybta halka ku qoran tahay hero section. halka horta magaca waynu bedeli doonaa si aynu CSS-ta ugu yeeri karno aynu stylekiisa gaar wax uga bedeli karno. one baan ku darsaday ka kalena waxa weeyaan isaguna waa hero oo keliya ayaa ku samaysa. marka one baan ku darsaday. one markaan ku daray waxaan leeyahay qoraalka halkan inooga muuqanayana waanu sii badsan karnaa. halkaa waxaan leenahay markaa waxaan samaysan karnaa maadaama aan one ula baxay halkan CSS-ta ayaan u yeeri doonaa. CSS-tu waxay midaynaysaa dhammaan page-ka HTML-ka waxaad ka maamuli kartaa hal page oo CSS waana problemka inta badan ay CSS-tu ay xalisay. marka waxaan u yeeri doonaa hadda qaybtii baan u yeeri doonaa hadda aynu soo samaysanay oo loo yaqaanay hero hore weynugu jirtay oo waxa weeyaan xaggan anay hore inugu jirtay halkaasaan soo copy garaysanaya. marka qaybtaasna haddaad sharaxaadeeda aad u baahan tahay taagaga muuqaalkii hore soo daawo muuqaalkii u horeeyey waad soo daawanaysaa. marka qaybtan soo copy garaystay halkaasaan ku paasti garaysanaya. labadoodu waxay ku kala duwanaayeen halkaa one baa raacsiisanaa sidaa awgeed halkaana waxaan kasoo bedeli doonaa extensionka iyo weliba waxa weeye file halkaa waxaan leeyahay marka AMG4 ayaan ka dooran doonaa oo JPEG ku save garaysan. halkaa markaan ka doorto waxaan leeyahay qaybtaasi marka waa inuu sawirkii uu isoo halkaa markaan marayno
si inagu soo baxo hadda haddaan aan tago faylkii aan tago aan qaybtii tago aan qaybta soo doorto laba mustacaan kariim aan qaybtan extensionka soo doorto qaybtan iska soo xidho qaybta haddaan soo doorto aan ku dhufto about hadda wax value ay soo baxaya ma jira sababtuna maxay tahay hoon markaan joogo haddaan about ku dhufto dee about waa inay xog iga soo baxda marka labadii waa inay lifaaq aynu ka dhaxaysiinaa indexkan tegaynaa indexku wuxuu ka dhigan yahay homeka oo kale uu ka dhigan yahay waa qaybtan macluumaadkan oo dhan inoo soo saaraysa sidaa awgeed inagoo qaybtaa joogna waa inaan dooran karaa aboutka markaa waa inaan samaysanaa lifaaqii tilmaamay waxaan tegi doonaa markaa qaybtan waxaan leenahay aboutka marka click la siiyo waxaad soo saartaa faylka loo yaqaano about.html faylka xogta ku jirta ka soo muuqato marka waxaan leenahay isagii baan tegi doonaa waa refresh gareyn doonaa about baan markaa ku dhufanayna okay about markaan ku dhufano about waa inuu noo soo saaraa xogtii waa inuu nagu sameeyo about markaan ku dhufto waa inuu noo soo saaraa xogtii weli xogtii nooma soo saarin aan dib ugu noqdo waayahay qaybtan html markaan soo save gareynaya maan soo save gareyn deetana waxaan leeyahay refresh garee den waxa weeye qaybtaas ayaan waxaan ku dhufanayaa aboutka ayaan ku dhufanaya about markaan ku dhufto marka waa inuu xogtii waa inoo soo saaray marka backgroundka waa kaan soo qaatay xogtii kalena waa kuwan isla qaybtii inoo soo saaray marka qaybta isbedeshay waa qaybta hero section okay waxaan u baahanahay marka qoraalkan inaynu soo bedelno qoraalkana badsano si lamida sida qaybtan oo kale sidaana u kala durdurkino sen taa u samayno waxaan tegi doonaa marka qaybta loo yaqaano css halkan waxaan ka baari doonaa file loo yaqaano halkaas waxaan ka baari doonaa file loo yaqaano okay container maadaama aan rabno qaybtan bedelaynaa inay tahay qaybtan dhexda waxa ka wakiila qoraalkan iyo qoraalka paragraafka iyo kan headingkaaba container classkaasi ku jira marka classkaasi inuu yeeli doonaa classkana css u tegi doonaa way halkaasina container baynu ka baari doonaa okay way container waa kan containerkan ayaan soo qaadan doonaa oo bida ah control baa c ayaan leeyahay waayahay xaggan ugu hooseysa ayaan dhigayaa marka way marka laba container weeyaan qaybtana waxaan soo xidhi doonaa okay breezekaas ayaan soo xidhi doonaa bidana meesha waan ka saari doonaa we no need way container baan u baahanahay containerkan marka saan u tilmaamsado oo u aqoonsado containerkan waxaan raacinayaa one baan isagana raacinayaa kan kalena isagana marka waxaan raacinayaa one baan raacinaya safe baan leeyahay kana waxa weeyaan safe baan leeyahay marka waa inuu labadii container intuu qaato waa inuu inoo soo saaraa waxa weeyaan xogtan iyo macluumaad waa inuu inooga soo saaraa okay intaa markaan samayno aan soo refresh gareeyo marka waayahay containerkii wuu qaatay laakiin wax weli isbedelay ma jiraan waxaan rabnaa midabka inaan kasoo dhigno farta haddaan centerkaana aynu soo dhigno aynu sida qaybtan oo kale aynu steelkiisa ka dhigno aynu soo bartankaa dhigno fartana soo waaweynayso qodobka koowaad marka hore steelkan waxaan ku darsan doonaa qoraalkan tegi doonaa qaybtaa waan ka saari doonaa line break waa ka saari doonaa halkaas waxaan kasii darsan doonaa qoraal kale saan ugu sii darsano loading baan qori doonaa inter baan siin doonaa marka safe aan leeyahay qoraalkii wuu iisii batay waxaan leeyahay halka container walba igu samaysan container 1 waxaad iga dhigtaa qaybtiisa koobaad marka ugu horeysa aan tago css-ta qaybahan oo dhan winoo iga soo tirtir container 1 baan maraynaa halkaas intigi doonaa marka waxaan leenahay qaybtiisa koobaad waxaad ka dhigtaa justify content-iga waxaad ka dhigtaa mid kasoo muuqda dhanka dhexda sidoo kale kalarka fartu yeelanayso dhammaantoodba white kalarkaasina caddaan ha noqdo intaa markaan soo dhameeyo waxaan leeyahay tagas alayna qoraaladuna halkay kasoo muuqanayaan iyaguna ha noqdo mid center intaa markaan sameyno waxaan leenahay save as haddana waxaan u sameysan karnaa paragraafki intaas soo refresh gareeyo waayay intaasu fartii waxay noqotay dhammaantoodba waa noqotay caddaan waxaan rabnaa inaynu kala durdurkino halkaan aynu ku qorno about us marka halkaan aan tegi doonaa qoraalkaasaan soo bedeli doonaa waxaan leeyahay about us ayaan siin doonaa intaa markaan about us siiyo qaybtaan u iman doonaa paragraafka ayaan markaa wax ka bedeli doonaa paragraafka waxaan ka bedeli doonaa waxaan leeyahay container okay container waan kana doonanaya marka tan waxaa briska soo furanayaa
intaan bariiska soo furan dhexdiisaas waxaan kasii dooranayaa paragraph. Paragraph waa tag waxa weeyaan isagu uma baahna selector. waxaan leenahay tagii caadi baa usoo tilmaamsanaysaa. waxaan leenahay baadhinkiisa qaybtiisa top, baadhinka qaybtiisa waxa weeye bottom. waxaad siisaa ilaa iyo 35 pixel oo kale baan siinayna. qaybta loo yaqaano tusaale halkan tusaale yar ka bixino, yani qaybtan labadan xad kala durka, yani qaybtan paragraphka ahi qaybteeda waxa weeye bottomka ahi waxa weeye intaasoo pixel hoos uga digto. tusaale qaybtan aan siinaynaa marka qaybta labaad aan leenahay waxa weeye waa baadhin, isaguna baadhin top. qaybta markaan joogno baadhin topka aan joognana isaguna waxa weeyaan ilaa iyo 30 pixel waxa weeyaan isaguna kor ka kala durka. qaybtii hoosena waynu kala durkinay iyo qaybtii sareba. waxaan leenahay okay, intaasaan soo samayn doonaa. marka waa qaybtan hoose, bottomkan hoose halkan yaalla waa hoos buu durkayaa. kaasna waxa weeyaan isaguna waa qaybtii topka ahayd oo waxaan rabnaa inuu isaguna kala durko. marka waa refresh garanaynaa inuu intuu inoo qaata. about us-kii labadan waa kala durkan. labadan waxaa kala durkiyey, kana waa paragraphkii, kana waa headingkii. marka inagu waxaan dooranay paragraphka oo keliya. paragraphka waxaan nidhi ilaa iyo qaybtiisa sare, xagga sare kor ha uga baxdo ilaa iyo 30 pixel, xaggan hoosena bottomkana ilaa iyo 35 pixel hoos ha u dego. marka labadii waa kuwaasaa u degay. haddii aan u baahannahay line spacingka kuwan ay isku jirjiraan, waxaan leenahay line height baan leenahay. haddii aan rabno inaan kala durdurkino line height ayaan u samaysan karnaa. waxaan leenahay waayahay line height-kuna haynoo noqday ilaa iyo 30 pixel oo kale waan oran karnaa. deetana waan refresh garayn karaa. marka qaabkaasuu linekiina uu kala durkaya, line height-kiina qaabkaasuu durkay. marka hadda sidiisii yar ku yara celi ilaa iyo 25 ka dhig oo kale. okay, isagana aan refresh gareeyo, isaguna 25kii ayuu qaadanaya. okay, taa markaan soo sameynay intaas waxaan filayaa inay simple tahay. waxaanu iman doonaa qaybta koobtanka soo dhameynay. waxaanu iman doonaa tusaale. hadda anoo about-ka jooga home ma tegi karo. home ima soo baxayso. marka about-kii unbay joogaysaa. markaan about joogana qaybaha kale ma dooran karo. marka home ma dooran karo. sidaa awgeed sababta aan dooran karin waxa weeyaan dee wax lifaaqa oo isku xidhan ma jiro. adoo home-ka jooga markaad ku dhifatid kaakaasa kuu soo baxo tilmaamaynu siin. marka qaybtan ay iman doonaa. waxaan leenahay indexkan tegi doonaa. haddii lagu dhufto adoo about-ka jooga, haddii lagu dhufto qaybta loo yaqaano home, ha kuu soo baxdo index.html ha kuu soo baxdo. halka index baan siinay. aan qaybta markaa refresh gareeyo. tusaale hadda anagoo about-ka joogna haddaan ku dhufto home waa inay soo baxdaa markaa homekii oo tilmaam buu haystaa. okay, aan ku dhufto home waa inay homekii markaa soo baxdaa. haddii aananoo homeka joogan aan about-ka ku dhufto waa inay soo baxdaa markaa xogtii about-ka. labadooduba markaa saasay tilmaam ay labadooduba u yihiin. marka casharkeenu maanta intaasuu ku saabsanaa. insha allah biidnillaah idinkuna soo practical gareeya. wixii aad fahmi weydaan ay soo weydiiyey. asalaamu calaykum.